magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug ayaa waxaa maanta soo gaaray gudoomiyaasha dhalinyarada maamul goboleedyada oo ka qayb galaya xuska maalinta nabadda adduunka waxaana galabta garoonka oo shaako ee magaalada Gaalkacyo ka soo degay gudoomiyaha dhalinyarada gobolka Banaadir Cabdifataax Maxamuud Makaraan iyo gudoomiyaha dhalinyarada Galmudug Caruuse Macalin Maxamed waxaana halkaas ku soo dhaweeyay dhalinyarada magaalada Gaalkacyo gudoomiyaha dhalinyarada degmada Gaalkacyo Suldaan Cabdi Jaamac iyo gudoomiyaha dhalinyarada gobolka Banaadir Cabdikaafi Maxamuud Makaraan iyo Caruuse Macalin Maxamed ayaa si wada jir ah ula hadlay warbaahinta waxayna sheegeen in magaalada Gaalkacyo lagu qaban doono xuska maalinta nabadda adduunka oo ka dhici doonta maalinimada bariya magaalada Gaalkacyo. Waraan waxaan salaamayaa martida maanta nooga timid magaalada Muqdisho iyo xarunta baarlamaanka Galmudug ee Cadaado waxaan rabaa inaan ku soo dhaweeyo magaalada Gaalkacyo gudoomiyihii dhalinyarada gobolka Banaadir oo nagala qayb gali doona 21 September maalinta nabadda adduunka waxaan rajaynaynaa Gaalkacyo oo la sheegi jiray inay tahay magaalada dhalinyarada inuu indhihiisa ku arko dhammaantood indhahooda ku wada arkaan inay tahay magaalada dhalinyarada waxaan leenahay ku soo dhawaada magaalo nabadeed magaalo dhammaan dhalinyarada Soomaaliyeed ku casuuntay maalinta nabadda adduunka magaalada Gaalkacyo waxaan halka u nimid inaan ka qayb galno maalinta nabadda adduunka 21 September sababta halkan loo yimid anaga iyo wafuud naga soo horeyso ka timid dawlad goboleedyada iyo dhalinyarada qaranka waxa weeyaan in la xoojiyo nabadda Gaalkacyo taas oo hormuud u yihiin dhalinyarada marka aad ugu faraxsanahay waa si joogi doona maalmaha soo socda runtii dhalinyarada gobolka Mudug waxay horseed u yihiin waxyaalo badan oo nabadda dhalinaya dhalinyarada Soomaaliyeedna hal door u ah runtii inay maartay ku dhiiradaan waxaan la dhihi karaa hadda waxay yihiin waa dhalinyarada hoyga dhalinyarada Soomaaliyeed taasoo ah runtii aktiifiyada iyo shaqada ay qabtaan oo ah wax soo jiida kar dhalinyarada aadan ugu mahadcelinaa si nabadda uga shaqeeyaan gudoomiyaasha gobolka Mudug iyo gudoomiyaasha degmada Gaalkacyo oo runtii aad door ugu leh iyo dhalinyarada firfircoon haday yihiin dhalinyarada jaamacadaha dhalinyarada gobolka dhammaan runtii oo ah dhalinyaro lagu dhiiri karo 20 bisha maalin khamiis runtii farxad ay tahay inaan anagoo u socono shirkii ka dhacay magaalada Gaalkacyo soo dhawan qurux badan dhalinyaro qalbiyo wanaagsan gudoomiyaha dhalinyarada Puntland ee Bayaan iyo gudoomiyaha dhalinyarada Galmudug oo runtii iskaashanayaan in la ugu soo dhaweeyo magaalada Gaalkacyo gobolka Mudug runtii farxad weyn ay tahay dal walbana waxa dhisay dhalinyaradiisa mar walba in laga fikiro laga tashto aayaha mustaqbalka dhalinyarada Soomaaliyeed ee sideen nabad waarta ku helaayeen runtii mid anaga dhan muhiim ah inoo tahay hadana dhalinyarada Soomaaliyeed oo hadda runtii shirkan ku midaysan oo dhammaan ka soo wada qayb galayaan dhalinyarada maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir iyo dhalinyarada qaranka Soomaaliyeed maanta runtii waxa dhihi karnaa dhalinyarada Soomaaliyeed mustaqbal fiican ay leeyihiin ay haystaan wadadii cadeedna cagtay saareen reer Mudug waxa lagu yaqiin runtii hadaladooda waaweyn aniga waxa ay haysaba inaan Mudug inaan muddo bil inaan sii joogo si aan wax badan ugu faa'iideysto marka waxa filaa gabar reer Mudug in la sii doono dhul marka insha Allah taala runtii waxa rajaha shirkan socon doono muddada 3 maalmood ee waxyaabo muhiim ah oo runtii dhalinyarada Soomaaliyeed mustaqbal fiican u leh inuu ka soo bixi doono dalkaana dadka u istaagi karo oo wax ka qaban karo runtii waa dhalinyarada waa marka ay fahmaan in dalka ayaga leeyihiin ma ahan in dalka in dad kale inay leeyihiin anaga ka dhigno dalkeena maanta hadii aan u istaagno nabadiisa iyo horumarkiisaba annagoo dhan ayaan wax u qaban karno marka waxa rabnaa in naga wada go'naato dal walba waxa dhisay dadkiisa yaana ka weecanin dhismaha iyo horumarka iyo ka shaqeynta dalkeena hooyo Maxamed Muxidiin Saxan Saxo Galmudug TV Gaalkacyo.